niman kaajid iyo jahadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadii iyo noloshii ee u diiday hargalkii ee u diiday badqabkii ee u diiday si xurriyad ah wadaniyad ah Soomaalinimo ah in ay uga adeegtaan beerahooda xoolahooda iyo guryahooda u diiday in allaala intii loo suurta gelisay inay maanta halkaan ku jiraan عربا أولاً مركو جوهر يسدد كهرباء ودقلة مر لبعض يمر سدحات يمر أفراد يعني مهد عليو وشعب صوماليات رنتي قلبي في عن قلبي فرن لا شقي عيدك حوجة دلك صوماليات هي ذهب نجا لا شقي يا مامورك حدنا عن رجينا إن شاء الله تعالى إن يلصي شقي دونا سوى ناكسن كفي عن سيدي هرو لك تكوض في عنادي لكن عن رجينا إنه waxaa laga soo bilaabay sabiid iyo caanoole maantay waxa la socotaan sabiid iyo caanoole shalay markii la iimaanayay iyo maantay qayb idin kamid ah waxa laga yaabaa inay degan yihiin oo ay ka war hayaan nolosha ka jirta isku mid mata ilaahay idinku dhaariye noloshii shalay sabiibtiilay iyo nolosha maanta taal isku mid mata ma waxaan rajaynaynaa waxay insha Allah ta'ala bil iyo maalmo gudahoodna taas mid ka sii sarreysay inay helaan ayaan maanta dadka reer sabiid iyo caanoole iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran nimankii shalay dhibaatada ku haayay ee baneestay dhiigooda inay dib ugu soo laabtaan haddaba ciidanku hore uga sii socdo meel kale ka aad ma ogolaanayaan taga waad istaqaanaan qoysaska qayb ka mid ahaa degan warsada nolosha ay maanta ku jiraan ma aragteen nolol kale ma galeen maanta base ma geli iftiinaa ku xiran magaalada iftiinaa ku xiran magaalada waxaan rabnaa idanka ilaahay halkaanu waa degmada Owreegle waa meel magac leh waa meel mug weyn waa meel runtii ummadda Soomaaliyeed taariikh ku leh waa meel dhaqaale leh maantana dadka ku nool waa arkaysaan diifta iyo dhibaatada iyo rafaadka ka muuqda taas waxaan u malaynayaa mid iska timid inaysan ahayn ee mid la baday mana aqbali doono marka dadkii baday inay sidaan noqoto ee diiday inay beerahooda tabcadaan ee diiday inay dhirta guryahooda dadda ay iska jaraan ee diiday inay wadooyinka furtaan ee aan la garanay hadaf iyo ujeeddo ay leeyihiin ee aysan jirin cid u kala saaran oo target gaar ah ee targetkoodu yahay cid kasta ee Soomaaliya inay dhiigeedana daadiyaan hantideedana ay isbaab ku qaataan dib dambe inay ugu soo laabtaan ma ogolaado deegaanada idinku dhawna inay ka sii socdaan oo ayagana aysan ku sugan aad waxaan uga xumahay wali ummad Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed aabayaal Soomaaliyeed oo maanta ku hoos nool wali inay jiraan laakiin idanka ilaahay waqti kooban waxaan rajaynaa ayaguna inay hoostooda ka bixi doonaan shalay waxyaabaha nasiib darrada waxaan halkaa ku kulannay nin dhalinyaro ah waxaan tusinaa calanka qaranka Soomaaliyeed waxaan niri adeerkan xooya wuxuu ma aqaan ilaahay idinku dhaariyay dhibaatada noocaas inay ku dhacday yaaba boqolaal Soomaaliyeed ayaa dhiigooda u daadiyay hooyooyin Soomaaliyeed u dhintay aabayaal Soomaaliyeed u dhintay wiilal Soomaaliyeed oo dhalinyaro u dhintay oo naftooda u huray iskaba imaan maanta marka in wiilka Soomaaliyeed aqaan waayo ma qaada karo mana dhicdo idanka ilaahay waxaan rajaynaa markaan u soo laabto degmada inay ku soo laabato noloshii asaasiga ahay qaranka Soomaaliyeed uu soo gaaray intii ugu horeysay inta ka dambeysana idanka ilaahay wuxuu soo gaarsiin doonaa noloshii asaasiga ahayd ee salka u heeday bulshada inay dhaqmaan bulshadu inay dareemaan nolol عندنا شعبنا Owreegle sida ay ula shaqeeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyeen maamulka waxaan idin leeyahay waxa halkan ku sugan waa wiilashii aqoonyada iyo aabaha u heeday cid ay u adeegayaan halkan marka wax yar hadaad dareento waxa ku furan
inaad u timaado ciidanka u sheegato dhibaatada ku haysa halkan waxaan u joogno waa inaan dhageysano qof kasta oo muwaadina oo cabasho qaba boqolaal qof oo isu timiday waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dadka socda inay yihiin dad nadiif ah laakiin haddana kumanaan qof marka ay isu yimaadaan qalad qof qaldan iyo laba qaldan lagama wey karo haddii marka aad dareentaan qof qaldan iyo laba qaldan ma ahan inay qaldan yihiin dadka idin yimiday waxaa laydinka rabaa si loo qabto kuwa qaldan laydinkaga qabto inaad tidhaahiin dhibkaasaa nugu dhacay waxaasaa na haystay qaadayna waxa laala iyo wixii adinku aad jeceshihiin waxa laala iyo waxa aad doonaysaan waxa laala iyo waxa farxadiinu ku jirto waxa laala iyo waxa ay ku jirto qarannimadu waxa laala waxa maamulku ku jiro inaan ka shaqeyno ballan idinka qaadayna aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum dararti cadceda labaday dandhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaade dhalaalada habeenkii dumalaysi boodo wax dhegaysa mooye dhacdid ma seexdee dararti cadceda labaday dandhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaade dhalaalada habeenkii dumalaysi boodo wax dhegaysa mooye dhaxani ma qabadee gumaysiga anigun dhanawrin dhigi maayo tuuta dhadhaabii gumaysiga anigun dhanawrin calayho haddaan dhiman haddaan dhiman wedku igama dheere calayho haddaan dhiman haddaan dhiman wedku igama dheere aygu dhulka uu ka sarey lagu soo dhici maaye dhudhunkeena ku daa inta uu dhinaceennu dhulka uu ka sarey lagu soo dhici maaye dhudhunkeena ku daa dhaban ka saaroon dhibtataa lorteena ku dheela laba mooye dhere kuma hawoode dhiirigeli dadkaago waxa aan la dhaafayn ku dhaqaaji mooye dhacdidi ma seexdee